بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada ugbaad healthy cooking oo maanta idin wada buskudkii iida maalmihii iidaanu ku jirnaa waxaan sameysanaynaa waxyaalo macmacaan ah maanta waxaan sameysanaynaa marka buskud baan sameysanaynaa halka kan ukun baa noo taala ukuntaan waa ukuntii buskud aan ku sameyn lahaa halkan hayl baa iigu jira inta tan waa hayl halka kan waxa yaala carfiso ama vanilla powder oo white ah halkan waxa yaala baking powder ba yaala baking powder iyo taala halkan waxa yaala bur 2 kiilo ah bur 2 kiilo ba yaala oo nooc brownka ah waxaan rabaa nooca brownka inaan maanta buskud ka sameeyo baan rabaa nooca brownka baan rabaa inaan buskud ka sameeyo hadii la hayno maadaama uu ku fiican yahay jabaatiyada iyo uu ku fiican yahay laakiin waxaan rabaa inaan ka sameeyo buskudka insha Allah halkan waa bur waxa kale halkan yaala maadaama buskudku uusan ka maarmin saliid badan baa lagu sameeyaa buskudka maadaama saliid badan lagu sameeyo waxaan rabnaa inta tabartiya inaan bal wax healthy aan sameeyno saliidan waa RS ama olive qof walba u yaqaan buskudku saliid badan buu cabaa waxaan rabaa inaan saliidan isagana aan ku daro insha Allah hadii la hayno halkan waxa yaala koobab aan rabo inaan wax ku cabirto halkan waa koob oo cabir ii ah weeye marka waxaan ku cabirayaan iyagana insha Allah hadii la idmo qofku wuxuu ku sameysan karaa xurbin waa lagu sameysan karaa mishiin waa lagu sameysan karaa ani waxaan rabaa maanta inaan mishiinkan aan ku sameysto insha Allah hadii la idmo maadaama uu ka dhaqso badan yahay kuwa kale uu ka dhaqso badan yahay marka waxaan rabaa inaan kan ku sameysto insha Allah hadii la idmo waa isku dardarsanaynaa weelkii baan soo qaadayaa marka aan iskula dardari lahayn baan soo qaadayaa bismillaah ukuntii dhan waa tanaa saxankan aan ku guray halkaan iska dhigaynaa meeshii weelkii aan ku qasi lahayn waa kana weelkaana marka rabnaa in aan ku xurbino baan rabnaa hadii Ilaahay idmo xoogaa sharqanta baan nacayaa marka insha Allah waa idin ka dibinaya insha Allah hadii la idmo waa kana waa soo xurdiyay haddana waxaan ku darsanaynaa sokortaan ku darsanaynaa sokorta marka qof walba intuu rabo ku darsanayaa adii 2 kiilo oo sokor 2 kiilo bur ah waxa la eg 4 koob oo sokor ah baa la eg qiyaas ahaan marka qof walba isagoo intuu rabo ku darsado adoo dad baa xataa 5 ku dar laakiin hadda 4 baan ku darayaa insha Allah sokortaana qof walba sokortu isagu jecel yahay ku darsado sokortaan sokor xoogaa aad u cad ma aha white ma aha saddexdaasaan ku darayaa walaal iyo intaas yarta baan ku darayaa insha Allah ma rabo inaan ka badsho intaasaan ku darayaa hadii la hayno intaana marka waxaan rabaa inaan haddana ilaa ay sokorta iyo iska dhexgalaan ukunta insha Allah sidii keega oo kale way noqoto Soomaalitan ma sha Allah saas la rabo inay noqoto ukuntii iyo hadda sokortii bay soo dhexgaliyay 10 xabo ukuna iyo 3 bakeeri iyo bar sokor dad baa hadii rabaan 5 ku darsado laakiin ani ma rabo inaan ku badiyo sokorta adii sidaa rabtid ku darso insha Allah dad baa buskud sokorta badan jecel laakiin anaga ma rabno hadda inaan ku darsano laakiin iska macmacaan oo sokor la'aan la waayimay haddana olivetan u cabirayaa hadii Ilaahay idmo olivetan u cabirayaa hadii Allah idmo buskud wax ka saliid cun badan daarta buskud jilicsan inuu ku noqdo wax ka saliid cab badan ma leh marka kale waa olivetan waa saliidahan oo daawaadka ah
haafna waa kusii darayaa insha allah. Marka intaasaan marka aan ku darayaa haddii ilaahay idmo. waxaan kaloo ku darayaa haylkiina waan ku darayaa. haylkii aan soo diyaarsanay isagana ku darayaa. waxaan kaloo ku darayaa baking powder waan ku darayaa iyadana. هذه اسقاطي كنت اسكتها. baking powder maaha cafwan waa faniiladii weeye. waa faniiladii midii oo carfisada ahayd weeye. faniiladu waxay noqotaa marna waxay noqotaa mid oo dareere ah oo qoyan, marna waxay noqotaa mid oo powder ah. hadda tan waxa weeyaan waa powder. hadda waxaan ku darayaa baking powder. haddaan ku darayaa maadaama buskudka 2 kiilo iyo labada qaadaan ku darayaa insha allah. intaana marka rabo inaan isku hagaajiyo. buskudka markuu saan oo kale yahay haddii ilaahay idmo waxaan rabaa inaan caanana ku darin biyana aan ku darin. haddii rabto caano waa ku darsan kartaa, laakiin waxaan jeclahay inuu intaan ila ekaado. markaan lagu darin buu macaan yahay, waxba aan lagu darin oo ukuntii iyo sokortii iyo adiga dufankii la isugu talagalay burka uu qooyo intaas. hadduu xoogaa ka adkaado waxaad ku darsan kartaa wax yar oo caano waa ku darsan kartaa. laakiin buskut kale isagana caano lagu sameeyo waa jira, laakiin kan waxaan rabaa maanta inaan ku sameeyo intiisaas haddii ilaahay idmo. baan rabaa inaan ku sameeyo. marka si fiican baan isugu xurbinayaa. hadda burka in lagu daraa dhiman. marka insha allah qaylada bahasha nacaya insha allah haddii ilaahay idmo. haddana hadda waxaad moodaaba inayba keeg tahay almost soo maartaan. waa sokortii, saliidii, faniiladii, haylkii iyo baking powder way. hadda burkaan ku bilaabayna insha allah haddii ilaahay idmo. burkaan ku bilaabaynaa marka haddii ilaahay idmo. waxaa dhici karta dadna waa jiraan ay ku qiyaastaan hadba intii qoyn karta baa lagu qiyaastaa. hadda 2 kiilo baan ku qiyaasay. waxaan dhici karta inuu ama ka bato ama wax ka saar, laakiin aan qiyaasay waxaan rabaa in ila ekaato insha allah haddii ilaahay idmo. waa fiirinaya haddii ilaahay idmo. marka miikahana xoog badan miikaha ula tagayaa. intaana gacanta la gelin waxaan rabaa gacanta inaan ula tago, laakiin hadda miikaha raba inaan cashar ugu dhigo. okay insha allah way noo deeqaysaa saan filayo. way noo deeqaysaa. marka إن شاء الله هاي هدي إلى هاي قلنا كوالنا سانا كسودنا إن شاء الله هدي إلى قلنا. لا سانا كسودنا سان في لي بركو أي وضع الأكانية. gacantaan usoo dhaqay. gacantaan rabaa marka inaan la galo. gacantaan usoo dhaqday. waxaan rabaa hadda gacanta inaan la galo haddii ilaahay idmo.
gacantaan la gelayaa haddii ilaahay idmo markaa buskud waa xashid marka insha allah. buskudka saliidda maasha allah saliiddaaba qasaysaba intaan wax kale aan meel kale intaan la gaarin iyo sokorti iyo wixii. marka fiideo waana ku dheeraanaya marka isdhex gasho insha allah baa soo noqonay. waa soo noqonay burkii waa kana markayna waa kana wax kale kuma darin ukuntii saliiddii baa sidaa noogu gashay maasha allah. marka waxaan sameynaynaa waa inta ilaa maaga timirta aan ugu naqsay timirtaana rabaa inaan maxaan ku rabaa aan ku sameeyo dhexda ku gasho waa buskudka maanta timirta waan soo fiiqday insha allah. saana rabaa marka inaan sameeyo haddii ilaahay idmo. baalaha kan sharxaadda suuqa yaalaan saana marka ku dhahanayna haddii ilaahay idmo. ama waa inta fiisid baad ku jarjaranaysaa inta haddii ilaahay idmo inta fiisid baad ku jarjaranaysaa ama saan baad dhahanaysaa haddii ilaahay idmo saana dhahanaysaa. marka timirtaana waxaan rabaa inaan dhexda ka gasho buskud timir way buskudka maanta timirta yarta hadhow dhadhan bay u sameynaysaa. marka saanaan kusoo wadayaa haddii ilaahay idmo saana u deeqsiinaya saasa in yar uga soo fujinaya waa taas ahay. waxa ii daaran ovenka wuu ii daaran yahay oo la gelin lahaa wuu kulul yahay. marka waxaan rabaa isagoo kulul inaan gasho dad badan waa waday waa kana waxaan sameeyey badradii koowaad baan sameeyey kuwaan badrado baan aqoon jira kulley. tii koowaad baan sameeyey tii labaadna waa tanaa waan ku wadaa insha allah. saanaan kusoo wadayaa haddii ilaahay idmo saanaan kusoo wadaynaa iyada dhan saanaan kusoo wadaynaa haddii ilaahay idmo maasha allah. hadda midkaad ku samayso ama saddexaad ku samayso ama afar gees ku samayso aday ku taalaa qofba wuxuu jecel yahay ku samaysto dhisanka in la fidiyo iyo inaan la fidinba maaragtay labadaba waa leedahay adi sigaarka u samayso saanaan kusoo wadaya. waa kasoo saarnay ovenka buskudkii waa kana isagii maasha allah ah buskudkii waa kana isaga maasha allah ah isaga maasha allah waa kana sidaanu noqday. waana buskud aad iyo aad u macaan oo u qurux badan timirtiina hadda dhexdeena ugaga jirtaa timirtiin dhexda ku jirtaa waa kaasa marka saas la kala dhaho wataa timirteenina waa taasa dhexda uga jirta. buskudkii waa kana buskudkeena maanta maasha allah tabaaraka allah. sidaan usoo sameynana waa ujeedeen tan waa badradii koowaad tii labaad tii saddexaadna waa ku jiraan sidaanu ku dhammaaday soo ma jeedaan. kor iyo hoos buu ka noqday kor iyo hoos buu qurux ka noqday haddana si jilicsan buu u kala foqayaa markaasaa si jilicsan buu u kala foqayaa buskud timirtiina ku dhex jirta waa taasaa oo u sameynaysa dhadhan macaan oo aad iyo aad macaan u sameynaysaa markaasaa adi buskud oo healthy ah guriga ku samayso inkastoo qofka wax kasta uu haysto u fiican tahay inuu isagu uu ku samaysto uusan isdhibin inuu isdhibo ma aha wixii markaas isaga uu haysto buskudka mid baa caana lagu sameeyaa ka caanahan mar baan soo gelinayaa in caana lagu daran waa fiican tahay waa kaasa maasha allah. buskudkeeni buskud aad u qurux badan weeye maanta oo macaan badan oo qurux badan weeye waana macaan yahay kaas kor iyo hoosba isku subuu ka noqdo markaasa si isla eg buu ka noqdo kor iyo hoosba maasha allah. saasaan kusoo gabagabeynay hawsheenii.